War ku soo dhawaada maanta muuqaalkeena waxa aan diiradda saari doonaa Shiina Culey iyo Daahir Cali Sow sababta ay isku dagaaleen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo janaalkeena ST11 oo laga soo gaabiyey Soomaali Tijaabo 11. Maanta muuqaalkeena ama ciwaankeeda ama sida aad thumbnailka ama title-ka aad ka aragtaan waxa aan rabaa inaan ka hadlo dagaalka Daahir Cali Sow iyo Shiina Culey iyo inaan ka hadlo rabaa sababta dagaalka keentay iyo waxa la isku haysto ayaa rabaa maanta muuqaalkeena ka hadlo. Waxaa horumarinayaa sababta keentay in ay isdagaalaan Daahir Cali Sow iyo Shiina Culey. Sababta keentay ayaa waxay tahay inay isdagaalaan labadan shaqsi oo baraha bulshada aad iyo aad ugu yaqaanaan dadka. Shiina Culey wuxuu ku aanbaxay TikTok iyo Facebook iyo YouTube. Daahir Cali Sow wuxuu ku aanbaxay Instagram iyo Facebook iyo YouTube. Labadan shaqsi ee aad iyo aad caan ka ah baraha bulshada ayaa waxay isku dagaaleen. Daahir Cali Sow ayaa wuxuu qabsaday Sharma Boy markuu qabsaday Sharma Boy ayaa wuxuu soo qaaday hees oo ku amaanayo Farmaajo. Kadib waxaa xanaaqay Daahir Cali Sow xanaaqiisa ayuu wuxuu la kacay inuu heesaha Sharma Boy ka saaro YouTube-ka. Heesaha Sharma Boy markuu YouTube ka saaray, Shiina Culey ayaa soo hadlay wuxuu yiri adiga hadda heesaha Sharma Boy YouTube-ka ka saartay, adigana heesaha Qadar Kenya ayaa hawada ku cunaya. Markaas Daahir Cali Sow haddana jawaab degdeg siiyay ayuu yiri heesaha Qadar Kenya hawada ku cuntid, anigana YouTube-kaada hawada ku cunaya. Horta sidaas ay isku dagaaleen. Dagaalkani waxaa keenay kaliya Sharma Boy. Marka sidaas ogaada. Maanta muuqaalkeena meeshaas ayaa kusoo gabaynaya. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Aniga Sharma Boy wax ma uu qabo, adeerkayga Daahir Cali Sow wax ma qabo, Shiina Culeyna wax ma qabo. Aniga waxaan doonaynaa inaad u gardan qaadno Daahir Cali Sow iyo Shiina Culey iyo Sharma Boy. Walaalayaal niman waaweyn leeyahay isdaaya. Dagaal ma fiicno ilmo ama ina isdagaashiin midba YouTube-kiisa dagaalka xataa waxaa dhici karto inuu been yahay oo views loo raadinayo. Walaalayaal aniga dad islaam aan ahnay, inta isdahaysid views raadis ayaa xumaleen doonaa godob naareed inaa ku dhacid. Walaalayaal naga dhaafa dagaalka. Waan baryo taagantaa dagaal aniga dooni mayno, tawar uma hayne naga dhaafa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu.